فسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. ugu horeyn ciddii soo qabanqaabisay iyo dadweynahan xaadirayba waa u mahad celinayaa. kadibna kelmadeennu waxay ku saabsanaan doontaa in sha allahu tacaala bayna atasbiixi waalrida, xidhiidhka ka dhaxeeya in la tasbiixsado. tasbiixu subxaana allah waa ilaahay oo waxaan u cuntamin ama u qalmin laga dheereeyo, waa tanziih. labada erayo subxaana allah walxamdu lilah. alxamdu lilaahina waa ilaahay oo wuxuu ku sifoobe kamaal iyo wanaaga lagu ammaano. subxaana allahina waa ilaahay waxaan u cuntamin ama u qalmin oo laga nasaha mase laga dheereeyo. dunida aynu ku nool lahay ilaahay wuxuu inoo tilmaamay in laynoo keenay in layna itixaamo. kullu nafsin daa'iqatu lmowt wanabluukum biاlshari wاlkhayri fitna wa ilayna turjacuun. dadka qof waliba geerida waa dhadhaminayaa baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala. inta geerida ka horaysana nabluukum biاlshari wاlkhayr, sharka iyo khayrka labadaba waynu ku imtixaamaynaa baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala. haddaad nimco heshana waa imtixaan, hadday dhibi ku soo gaadhana waa imtixaan. labaduba waa imtixaan. mid waa imtixaan oo waxaa la eegayaa inaad kibirtoo qooqdid ama inaad tawaaducdid oo ilaahay u mahadnaqdid oo shukri la timaadid. waa markaad wax hesho, nabad iyo caafimaad ka dharagtid, xoole heshid. cagsigeeduna waa imtixaano waxaa la eegayaa inaad sabirtid, adkaysatid. ilaahay subxaana wa tacaala qadaa'uhu wa qadaruh inaad raalli ka noqon kartid. qur-aankana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inooga warramayaa ambiyo tiro badan oo labadaba lagu imtixaamay, iyo dad saalixiina. dad xoolo iyo madaxnimo lagu imtixaamay sida nebi sulaymaan, nebi daawuud, dulqarnayn, taaluut. waa madax muslima oo soo martay caalamulislaami ama dunidii muslimkaee soo jirtay, dunidana ka teliyey meelo badan oo ka mid ah oo la imtixaamay. nimcana lagu imtixaamay. kuwo kale oo dhib lagu imtixaamayna ilaahay uu ka warramaya qur-aanka. qaar la dilay, fariiqan taqtuluun. qaar la xabsiyey, nebi yuusuf. qaar xanuun lagu imtixaamay, nebi ayuub. basharka waxa dhib soo martoo dhan iyo waxa barwaaqo maraba ilaahay ambiyu tusaale uga dhigay. haddaba dhibaatooyinka wakhtigay jiraan dadku in badan wuu warwaraa, cidhiidhina wuu dareemaa. maanta dunida aynu ku nool lahay dacal walba muslim baa la dilayaa. waxa raadiyo iyo tv ka warramaya waa muslim qaxaya iyo muslim la dilayo. cidda dareen islaamiya ku jirta markaa ama ka damqanaya dadka muslimiinta iyo dhibta gaadhaysa waa warwaraya. waxaynu ka warramaynaa markaasi warwarkaa dawadiisa. nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wassalaam wuxuu ka soo baxay magaaladu u dhashay ee maka ah. dabeetana dadkiisii baa ka hor yimi, dagaal kala hor yimi, dhibaatayn kale kala hor yimi, aflagaadayn iyo ceebayn kala hor yimi. isagoo rasuul ilaahay soo diraya oo leh ilaahay keligii caabuda ayay kala hor yimaadeen inay idhahdaan beenaalaad tahay, saaxir baad tahay, kadaab baad tahay. waxaa qur-aanku uu ka warramayo oo dhan. qofka bini aadamka ee dad sama u sheegaya wanaag u wada ee haddana dadkii wanaagga uu sheegaya ay ku leeyihiin beenaalaad tahay ama kadaab baad tahay ama saaxir baad tahay ama waad waalantay. yaa ayuha aladii waxay tilmaamayaan warkan kitaabka lagu soo dejiyeyo innaka la majnuunun bay leeyihin. waabaad waalan tahay, waxbaa kuu dhiman. cidhiidhi buu nebigu ka dareemay markaasi calayhi salaatu wassalaam. saxaabadiisaa hortiisa lagu toorjargaraynayo o lagu leynayo aan waxba u tari karaynin. waxaa hortiisa ku dhimanayey magaaladu joogay qoysas dhan oo la toorjargareeyo sida reer aalu yaasir oo kale. wiil baa ka badbaaday, camaar ibnu yaasir baa ka badbaaday, odaygii islaantii wixiiba toorjarkaa lagu laayay. qaar kale waa la cadaabayay sidii mu'adinkii nebiga calayhi salaatu wassalaam
bilaal alxabashi oo kale dhagxaanta la saaro allah allah u lahaa waxaasoo dhib oo soo maraysay haddana waxaa ka sii dhib badan marka dadka qofka kuugu xiga uu noqdo ka kuugu adag nebi maxamed adeerkii ruma markuu quraysh ka qustu dadka kale is yidhi la hadal carabtaas xajka timaada ama maka timaada ama meelaha timaada la hadal adeerkii baa daba socdoo le kan ana adeeru waa beenaale waxba ka dhegaysanina waa nin waalan waa abulahab waa adeerkii oo aabihii walaalayiin oo le waa wiilkayagii waana idinka og waxaad odhan lahayd haddii ninuu kuu yimaado adeerkiina daba socdo oo adeerkii ku leeyahay wuxuu sheegaya waxba kama jiraan ilaahay baa subxaanahu wa tacaala markaa wuxuu u soo dejiyey qur'aan ka warramaya laabtiisu siday u caafimaadi lahayd diiqan iyo cidhiidhiga tan iyo dhibtan qofka muslimka ah haysta si uga bixi kari lahaa waa dawaa'un yustashfa waa dawo lagu caafimaado ama tiryaaq sunta lagaga bogsado ilaahay wuxuu leeyahay fi suurati alxijr walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun walaqad naclam waa ognahay baa ilaahay leeyahay annaka yadiiqu sadruk laabtu inay ku cidhiidhtoomayso waxay ku hadlayaan daraaddeed adoo ilaahay rasuulkiisiiya basharkaba ilaahay kaa doortay afdal ah wixii bini aadamba aadam dhalay ugu fadli badan in haddana lagu caayo oo lagu tilmaamo waad waalan tahay ama waxba kuu dhiman ama waa saaxir ama waa kadaab ilaahay wuxuu leeyahy waa ognahay in laabta ku cidhiidhiyoomayso oo waxay ku hadlayaan laabtaada cidhiidhi aad ka dareemi doonto ee maxaa dawo kuu ah fasabbix bixamdi rabbik wa kun min asaajidiin baa ilaahay yidhi ilaahay u tasbiixso adigoo ku dheehaya amase ku maraya mahadnaqiisa iyo xamdigiisa kalimataan subxaana allah wa bixamdihi adigoo leh samee baa ilaahay yidhi oo wa kun min asaajidiin kuwa sujuudayana ka mid noqo labadan shay ee ilaahay uu tilmaamaya waxa weeyaan waa labada laabta caafimaadiya wax kasta oo cidhiidhiyo bini aadamka soo mara uu kaga bogsado haddii uu maxay dhadhan ay u samaynayaan hadduu yahay dadka salaada dhadhamiya tasbiixda dhadhaminaya qur-aan badan baa ilaahay soo dejiyo nebiga cidhiidhiga haysta uu ku tilmaamayo qad naclamu inahu layaxzunuka aladii yaquuluun falacalaka taarikun bacda ma yuuxaa ilayka wadaaiqun bihi sadruka an yaquuluu lowlaa unzila calayhi kanz aw jaءa macahu malak فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين كل هذه الآيات إلهي وحكا ورمية عديدك نبيك هيستي عليه الصلاة والسلام عديدك نبيك هيستي إيا عيب تنصدوا النعباء إيا مسلم كان لديبا إيا وحا لغو هدليو إيا وحا دود لغا إيا مو لعق هيستو إيا ما ملايك صور راعدا إيا dadkaa rumayn waayey ilaahay wuxuu uga dhigay markaas amar lagu siiyey tasbiixso adigoo ku dheehaya xamdiga alle oo sujuud kaas baa tiryaaq u ah ama caafimaad u ah laabtaada iyo waxay ku hadlayaan oo dhabkaasaad kaga bogsanaysa walidalik baa nebigu calayhi الsalaatu wasalaam markaa arrini qabsato idaa xasabahu amrun badara ila الsalaa marka dhibi ku dhacdo waxa uu degdegi jiray nebigu calayhi الsalaatu wasalaam xagga salaada waxaana ilaahay qur-aanka ku tilmaamaya mas'aladaasiyo aad loogu boorinayo qur-aanka dhul badan kaga soo aroortay fasbir calaa maa yaquuluun wasabbix bixamdi rabbik qabla طuluuci الshamsi waqabla اlguruub ومن الليل فسبحه وأدبار السجود في سورة قاف إلهي وحليه الصبر وحيكو هضليان وإلهي والتصبيح صو أدقو كده هيا إلهي مهد نقيس واقو انت أنو بريين أما عدادي صابحين إيا انت أنا عدادي دعين إيا انت قبل قرعي هبينة إيا وأدبار السجود صلاة هدبدود تصبيح ذا بضي با إلهي لي فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك
وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار في سورة غافر وفي الطور واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم وفي سورة الإنسان فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا صور كاكا لقدسانا إن صوت المامنين دمان تود إلهي نبي محمد وحفر يا إنو صبره مركا لبادنا وحلا فريا إنو قرقار سدو صلاة هي تصبيح صلاة هي تصبيح إنو قرقار سدو تا معنى هدو حويا عديدي كستو قفك بني آدم كي قالو هدو تصبيح دا بديو وكعافي ماضية هدو تصبيح دا بديو لابتيسو واي عافي ماضيسا وانا الدودي لسيي نبي محمد عليه الصلاة والسلام اللوط المامي إنو يتهي وحاوكو عافي ماضيو بل waa dawada kurbo oo dhan lagaga baxo balaayadu markay kugu habsato ilaahay quraanka wuxuu tilmaamay wadannuni id dhahaba mughadiba fadhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin nabiyullahi yunus ba ilaahay quraanka kaga waramaya oo markuu tolkii ka cadhooday waxba ka maqli waayeen intuu cadhooday ka tagay isagoo moodaya inaan loo qabsanaynin إلهي وحليه سبحانه وتعالى وانقبرنا دبتنا وأكيد دون طفولي سين وضنا قانو دونتي دبتنا لقت فوري أما كان دعي دبتنا بدو اللقضي بدأ قده هدي هدنا النميري سيلقي قف بضي اللقضي أول بيب بضي هيد إلا نقيد لعسكدانا ما يلعد واحد كوبت بعد داشرين iyadoo baddu ku liqday haddana hadduu nimiri afka ku geliyo calool nimiri buu galay markaasuu dhawaaqay baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala an laa ilaaha ilaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin fanaadaa fi dhulumaati antani waa mufasiradii waxa uu ku dhawaaqay waa maxay laa ilaaha ilaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin ilaahay waad unba xaq lagugu caabudaa subxaanak حمك هفنان تادي نزهني دادي يويني دادي إني كنت من الظالمين وحنا نكوشرا ما ها إله ظلم هذه ظلم ضيه وأنا ظلمي يجيبوا لي وفق مؤمن كان نبطه يوحي الرميسي إلهي إنه يهي محي ليس بظلام للعبيد وحلالي وحاضي نكوشرا إنه يهي فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وحلالي وحا مشاكلكو قبصدا waxaad geysateen wax kamidoo lagu horumariyay inaytay waliba in badanna inuu rabbi ka dhaafay way afu an kathiir dadka badna waa loo ururiyaa waxa soo dhanoo naarta lagaga wada jaraa dadka badna adduunka lagaga sii jaraa nabiyullaahi yunus wuxuu ku dhawaaqayaa markaa meeshaan ku jiray dhibta ay haysataa waa waxaan anigu geystay ilaahu dulmiyaad adigu dulmiday maaha ilaahu afcaashaada odhiya dhammaanta xumawaad ka dheertay subxaanak buu leeyahy ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoogu jawaabayaa markaa wixii lagu badbaadiyey nabiyullaahi yunus inuu yahay maxay tasbiixda ilaahay fii suurati saad ku tilmaamaya haddana falowlaa annahu kaana min almusabbixiin lalabitha fii batnihi ilaa yowmi yubcahuun baa ilahay yidhi falowlaa annahu kaana min almusabbixiin haddii lala yahay baa ilaahay leeyahay markuu dunida joogay ama nabadda qabay ama caafimaadka qabay haddaanu ka mid ahayn kuwa tasbiixsada kuwa rabbi u tukadee tasbiixsada haddaanu ka mid ahayn lalabitha fii batnihi ilaa yowmi yubcahuun halkaasaan ku ciqaabi lahaa baa ilaahay leeyahay inta laga soo saarayo idan sababu najaati waxa uu ku badbaaday ee ilaahay subxaanahu wa tacaala ku badbaadiyey waa maxay waa inuu ahaa min almusabbixiin إذن كربدا لغو فايدة أيا كانت كربكو هايستو رباطها النغطو وجسدية جدهان كو هايستا أما هالنغطو مد الله بهان كو هايستو نفسية psychologically problem كو هايستا وحملي كاري لادو قادي كاري لادي وحلقا قبت بادا إنا التصبيح دادا باديسيد
bal quraanku wuxuu inoo tilmaamay inuu xidhiidh ka dhaxeeyo inshiraaxu sadriga qofku inuu farxo laabtiisu ballaadhato inuu rida dareemo iyo tasbiixda in xidhiidh ka dhaxeeyo ilaahi subxaanahu wa tacaala nabiyullaahi moxamed wuxuu tilmaamay in laabtiisa loo sharxay alam nashrax laka sadrak nabi muuse waa ku ducaysanayay rabbi ishrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaani ilaahu laabtayda ii waasiciyo ii sharax cidhiidhi hay dareensiin ilaahay nebi moxamed wuxuu tilmaamayaa markaa siduu laabta ugu sharxoomayso siday tay wa min waraa'ihina innaga في سورة طه إلهي وحليه فاصبر على ما يقولون وصبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فصبح وأطراف النهار لعلك ترضى با إلهي وحي إلهي إليه صبر وتصبح سوء تكو عبادي سوء وإنتانو بريين يا قبلكو إنتانو دعين إنت كنحله iyo habeenka gobol ka mid ah iyo dacallada maalintii waqtiyada salaadaha iyo cibaadaadka la sameeyo dhan ayadu waa soo hosgelaya intaaba tasbiixsan la yidhi maxaad helaysaa markaa lacallaka tardaa baa ilaahay yidhi kay tardaa si aad raalli ahaanshiye u heshid idan bayna alridaa waatasbiix bay aayaddan isku xidhaysaa iyana qofku hadduu rabo cidhiidhiga nafeed inuu ka baxo warwarku inuu ka dego inuu ka mid yahay tasbiixdu waxa ay ku degto waana wax la faray qofka muslimka fii xayaatihi kulliha ama fii yowmihi wa layli intaan cadceedi soo bixin intaan cadceedu dhicin habeenka gobol ka mida maalinta qaybteeda hore maalinta qaybteeda dambe intaba aayaddu waa tilmaamaysaa culamada badh baa waxay yidhaahdaan tasbiixaha waxa ugu weyniba waa salaada waayo 7 meelood oo salaada ka mid ah la tasbiixsadaa salaada ka mid ah sida ogeed baa ilaahay wuxuu quraan ku tilmaamaya fi buyutin adina allahu an turfa wayudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghudwi wal asal waxay ku fasiraan yusabbihu lahu fiha bilghudwi wal asal ilaahay loogu tukanayo lagu tasbiixsanayo gelin horiyo gelin dambaba waayo waa shaqada ugu badan ee uu qabto qofka maxay salaada tukanaya waa shaqada ugu badan ee laga rabo dadka masaajidda camiraya inay sameeyaan xadiidkii mucaawiyah ibn al-hakam nin baa soo galay masaajidka iyadoo la hadla buu ogaa salaada waagii hore hadalkuna uu iska bannaanaa adigoo iskaga jira haddii mid kula hadla waad iskala hadlaysay dabeetana quraan baa soo degay tilmaamaya inaan hadalku bannaanayn kadib nimaan waxba ogeyn baa soo galay salaadiyo lagu jiraa midixin dhisay dabeetana alxamdulilah ayuu yidhi waa la maagay marka raggii salaada kula jiray baa isha ku wada gubay ama waa loo sacbatumay waa loo tilmaamay inaanu waxa kane wuxuu sameeyay ahayn thakalatkum ummukum buu yidhi marka hooyadiin idinka goblantay maxay shayga gubaysaa dabeetana waa loo sii tilmaamay inaanay saas saxayn salaada markii laga baxay ayuu nabigu u yeedhay calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuxuu leeyahay fa wallaahi ima dagaalin oo ima weji tubin oo ima maagaynin qof wax sameeyey igama dhigin weligay ma arag buu leeyahay macallin ka fiican nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam intuu ii yeedhay buu wuxuu igu yidhi buu yidhi ina hadihi الصalaaة laa yasluxu fiiha shayء min kalaami الnaas warniyahow salaada gudaheeda dadka warkooda wax ahay uma suubamaan ee waa maxay inamaa hiya الtasbiix والtakbiir وaqira'aة الqur'aan buu nabigu ku yidhi salaadu waa tasbiixaat iyo takbiiraat iyo qur'aan la akhriya buu nabigu ku yidhi calayhi الsalaaةu wasalaam sidaa awgeed salaada waxaa ka mid ah allahu akbar markaad tidhaahdo tasbiixaad baa lagu furtaa subxaanaka allahuma bixamdik sawt kama mid ahaa tasbiixda lagu furto tabaaraka ismuka watacaala jaduka walaa ilaaha hayru waxaa kaloo ka mid ah subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allah waxaa ka mid ah 3 jeer in la yidhaahdo tasbiixaad iyo takbiiraat iyo wax la mida kuwaasoo dhammi waxay yihiin maxay iftitaaxiyada salaada lagu furto waa nooc ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah salaada marka la rukuucsanya maxaa la yidhahdaa
subxaana rabbiya alcadiimi wabixamdih ama subxaanaka allahuma wabixamdik iyo wax la mid ah. marka la sujuudsayay maxaa la yidhaahdaa subxaana rabbiya alaclaa wabixamdih iyo wax la mida tasbiixaad la mida. qur-aanka markaad akhriyayso ee salaada tukanayso haddaad aayaatu tasbiix aayad ka mida soo marto waa la tasbiixsadaa. imaamkaagu hadduu qaldamo ama shay qalati uu ka dhaco salaadda maxaa la sameeyaa subxaana allah baa la yidhaahdaa. haddaanad faatixada aqoon aad iminka islaamtay ama aanad hore u aqoonin maxaa la sameeyaa halkii faatixada tasbiixaad baa lagu bedelaa subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaha illa allah wallahu akbar ayaa lagu tukadaa halkii faatixada ayaa lagu bedelaa. waa 7 meelood bay yidhaahdaan culammadu iyo salaada ka mid ah oo 7daba la tasbiixsado. waxaan leenahay ma marka dhibtoo quraba tasbiixaadku maya cagsigana waa loo adeegsadaa. bini aadamku hadduu nimco helo wuu kibraa. nimcada bini aadamku kibir buu ka qaadaa ama tacajub iyo isla weyni. dunida maanta aynu ku nool nahay maalmihii la guulaystay aad baa loo faanaa. waddan waliba maalintuu madaxnimada qaatay ama xornimo qaatay ama kan qaatay maxaa la sameeyaa isticraad alquwa. dowladda iyo dadku waxay xoog lahaayeen baarayd baa la maraa askar baa la mariyaa ciidamo dowladda xooggeeday muujisaa. bini aadamku inta badan afraaxda wuxuu ka dhigaa meel uu xooggiisa muujiyo. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu barayaa nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo wa min waraa'ihi almuslimuun markaad guulaysataan ama nimco heshaan ama badhaadhaysataan kibir ma jiro ee tawaadacuu lilaah. ilaahay baa idiin hiiliyeye ilaahay isu dhuldhiga. saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu u tilmaamayaa shaqada ugu fiican ee la qabtaa inay tahay maxay tasbiix. idaa jaa'a nasru اllahi wاlfatx wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illaahi afwaaja. markii hore waxaa la tilmaamayay markuu maka joogay ee jabay ee laga xoog batay ee la aqbali waayey ee cidhiidhigu haystay wuxuu samayn lahaa tasbiixsaa la yidhi. markuu maka ku soo galay isagoo 8,000 oo askari wata oo reer maka isdhiibeen oo uu meesha oo dhan ka taliyey ee dowladda islaamiga calankeedu ballaadhay ee reerihii iyo qabaa'ilkii ka soo hor jeeday wufuud ay bilaabeen reerin loogu yimaado reer walba isagoo odagiisu hor kacayo ayaa ilaahay nebiga la hadlaya calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii waxaa la leeyahay idaa jaa'a nasru llah waalfatx haddii ilaahay guushiisu idiin timaado iyo furashadiisu oo wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illaahi afwaaja oo aad aragto dadkoo diinta u soo gelaya koox koox. awal midhmidh baa la la'aa marka qofkii islaamaa la tumayey. iminkana waa koox koox iyo bulsho bulsho. haddaad aragto dadkoo diinta saa u soo gelaya baa ilaahay yidhi maxay qabo ma faanfaan baa la yidhi oo kibir markaa oo sheego raganimadiinna iyo xooggiinna inaad ku meel marteen. maya ilaahay wuxuu leeyahy markaana waxaa samaynaysaan fasabbix bixamdi rabbik wastakfirhu. ilaahay subxaanahu wa tacaala u tasbiixso adigoo ku dheehaya mahadnaqiisa. weliba dunuubtiinni ina ilaahay idiin qabanin iyo gaabiskaad diinta ka gaabiseenna istikfaar kala kaalaya baa ilaahay leeyahy.